Assalaamu calaykum asxaabteena qaaliga ah, waa in salaanay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada dhammaantiin. Maanta waxaan idiin wadnaa fiidiyogan quruxda badan. Haddii nagu cusub tahay fadlan subscribe noo dheh, haddii hore noola joogtana soo dhawow. Fiidiyoga like tii share taa ka hilmaamina. Daawasho wacan asxaabta. Waxaa inoogu jira digaag. Waa digaagan soo dhaqno soo nadiifinay. Waxaan kaloo maanta ku dari doonaa digaaga qudaartan. Halkaan waxaan ku haysanaa waa baradho, basal gaduud 2 xabo ah, xawaajiyaashii lagu dari lahaa digaaga, basbaas waaye, qorfo waaye, cusbo, maraq digaag, xawaaji, wax alaali waxa markaas haysatid ayaa ku carfsanaysaa. Waxaa kaloo halkaan noogu jira yogurt. Waxaan rabnaa inaan ku darno vinegar yar ama khal saa u taqaanid. Waxaan kaloo ku dari doonaa karooto iyo yaanyo shiishid insha Allah. Intaas isku soo waxaynaynaa. Horta digaaga ayaa waxaa la dhigaynaa waxyaalihiisi. Waa kana yaanyadii aan ku soo dareynaa, xawaajiyaashii aan ku soo dari doonaa, yogurtkii, vinegarkii, kulligood waxaa soo dhan waa ku soo wada dareynaa digaaga aad ugu walaaqaynaa. Waa la dhigaynaa waxaa la rabaa saacado inay la taalo oo si fiican ay lafaha uga gasho asxaabta. Waa kana u jeedin xawaajiyaashii aan ku soo darnay, maraq digaagii, xawaajidii, basbaaskii, kulligood waa ku soo wada dareynaa. Wax yar oo khala haddana ku soo dareynaa. Xawaajiyaasha nooc alaale iyo nooca haysatid ayaa ku darsanaysaa. Wax dhiba kama imaanaya. Hadda waxaa ku soo dareynaa yogurtkii. Yogurtka wuxuu u yeelayaa macaan iyo dhadhanaan si fiican. Digaaga waxaa waa iskama deynaysa daad yogurt ku dartid. Marka waa isku soo walaaqaynaa intaan insha Allah si fiican ugu soo dhaxqasaynaa digaaga. Waa kana ku soo qasnay. Waa la dhigaynaa insha Allah muddo 2 saacadood ah si ay si fiican lafaha iyo dhuuxa uga gasho waxyaalaha la marmariyay oo lagu dardaray. Digaaga intuu isku keen dhaxgalaya waxaa sii sameysanaynaa qudaartii. Qudaartii ayaa sii jarjaranaynaa. 4 xabo baradho soo dhaqnay, waa soo nadiifinay, waa soo fiiqnay. Waa jarjaraynaa kuskus xogaa roona ka dhigaynaa. Alaabta ovenka la gelin rabaa marka. Hadda aad u yaryaraysid waxaa laga yaabaa inay ka burburto. Marka xogaa kuskus ka dhigaysaa. Sidoo kale karootada ayadana waa soo jarjaraynaa. Basal ayadana soo jarjari doona insha Allah. Wax alaal waxaad jeceshahay ku dari kartaa. Haddaa ratid karootada iyo baradhada iyo basasha waxaa ku kordhisan kartaa digir cagaar. Waxaa ku kordhisan kartaa mushroom. Marka qudaarta nooca jeceshahay ku sii darsanaysaa. Anaga hadda maanta intaana ku dareynaa. Hadda meeshaan basashiyan ku soo jarjaraynaa kulligood. Wax yar oo cusbana waa soo marin doonaa. Kadibna weelkaan oo ugu talagalnay inaan la gelino ovenka ayaan ku soo ridaynaa. Weelka saliid fiican u soo marinay si ay hadhowti kaaga dhigin baradhada iyo karootka qudaarta si ay salka ugu dhigin. Haddana digaagiyan ku soo dareynaa. Digaagiyan soo saaraynaa. Sidaas ugu soo wadaynaa kulli markaa soo saarno. Insha Allah dabkaan gelin doonaa ovenka asxaabta. Alaabtan waa alaab yar oo macaan. Qadaa ka dhigan kartaa, casha ka dhigan kartaa. Wax alaali waxaa jeceshahay ka dhigan kartaa. Digaagii qalabkeedii waaye ayaan korka uga soo dareynaa. Alaabtii aan la dhignay haday ayaan korka uga soo shubaynaa. Hadda ovenka waxaan geenaynaa 150 kor iyo hoosna waa geenaynaa. Ugu yaraan 50 daqiiqana waa dubaynaa insha Allah. Ama 55 daqiiqo. Waa kana alaabtii diyaar ah. Oo la soo shiilay si fiican u soo shiilmatay. Waa u jeedin maasha Allah qurux iyo macaan isku darsatay. Waxaad doontaa ku cuni kartaa, bariis ku cuni kartaa, pasta ku cuni kartaa. Asxaabay marka fiidiyowga intaan noogu dhan yahay. Fadlan fiidiyowga like dheh, share dheh. Waa ku mahadsantahay daawashadaada. Assalaamu calaykum.